halkani dhegaystayaal waa walwal news at www.walwal.com. magacaygu waa Aadan Garaad Maxamuud waxaan la soo xiriiray maanta ama caawa xilliga UK warbaahinta walwal online anigoo ka hadlaya arrinka shalayto ka dhacday deegaanka SSC oo dad isku family ah wax yar ay dhex mareen waxa weeye oo dad ehel ah oo family ah oo wada dhashay oo dhulka ilaahay uu ku wada beeray ilaa intii ay noloshoodu macnaha ay soo jirtay ilaa maalinta ay inta adduunku dhammaanaya ku wada noolaan doona ayaan rabaa inaan ka hadlo. aad iyo aad baan uga xumahay dhacdadii shalayto ka dhacday deegaankaas. waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa intii dhimatay in Ilaahay u naxariisto. waa sokeeye macnaha adigu maxallin kari waaye arrinkooda oo waxa ka shaqaystay baynu oran karnaa waxayna shaqo ku lahayn. allah u naxariisto. inta dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo. inta wanaagga jecel ee deegaanka ka soo jeeday iyo ummadda Soomaaliyeedna ee wanaagga jecelna waxaan leeyahay ha loogu duceeyo ilaahay idinkii. waxaa sharaf ah in dadkaasi ay yihiin dad ehel ah oo deegaankaasi in badan aanay colaadi ka jirin oo hataa intii burburka Soomaaliya u dhacay ahaa meelaha ugu xasiloon. dhinaca siyaasadda ha la isku hayo oo hala kala jiito siyaasadda, laakiin waxay ku dadaaleen dadka deegaankaasi inaanay iyaga gudahooda aanay colaadi dhex marin. inta waqtigu isbedeli doonana in macnaha iyagu xataa ay kala nabad galaan ayaa guusha ugu weyn ay gaadheen. wax ilaahay loogu xamdi noqo. inta wanaagga jecel iyo samaha waxaan leeyahay wanaag iyo samaha weli waa halkiisii. dhulku idinka badan, deegaanku idinka badan. ma jirto macnaha xad aad kala leedihiin oo dadku waa ehel, waa sokeeye. inta xumaha idinku wada ama caqligeedu aanu siin karin waxa la isu yahay waan garan karin, waxaan leeyahay dhulkan shalayna waa lagu dhaqnaa, duraadna waa lagu dhaqnaa, saandamana waa lagu dhaqnaan doonaa. caqliga iyo garashada ilaahay ha idin siyaadiyo. waxaan leeyahay wixii dhacay dhace iyaan lagu darin wax dambe. waalidnimo halkii adduunka ugu hooseysay maanta macnaha dadka ehelka ah iyagoo macnaha ehel ah in maanta macnaha ay ka suurtooda waxyaabaha qaarkood. waan kala hanweynaa runtii tolkay. aad iyo aad baan uga xumahay. waxaan u dirayaa baaq nabadeed mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad dadka ehelka ah in ay soo ceshadaan xasiloonidoodii iyo gobonimadooda iyo sharaftooda. waxaa suurtagal ah macnaha in xataa dad ay ka dhex shaqeyn maanta Soomaaliya waa laga wada warhayaa boqolaal gacmood baa ku jira. meel kasta macnaha dowladaha ku jira, kooxaha ku jira, kuwa wax diidan baa ku jira. deegaanka weliba gobolada dadka SSC ay degaan waxa weeye waxaa aad ugu soo noqonaysa colaado in badan soconayay. marka mid la dejiyo mid kale haddana soo ifbaxasay. waxaan is leeyahay eedda badankeeda waxaa leh dadka deegaanka. waxaana hurinaya oo furaha u haya maadaama dhulkii deegaanka ay haystaan badankiisa. aad iyo aad baan uga xumahay in isla u dhaqmaan, in dadkooda ay isku diraan. maalinta mid la xalilo inay mid kale ku daraan waxay ka helayaan ma jirto. if iyo aakhirba waxaa ugu sugan halaag.
dadkiina inay noqdaan dad fahmi waaya intaa waa nasiib darro aada iyo aada u weyn. waa waxa aada looga xumaado. dadka SSC ee dhulkaa degan ama daraawiisheed waxay ahaayeen dadkii xornimada Soomaaliya ugu horreeyey ee sharafta naftooda u horeeyey. meesha maanta dagaalkaas uu ka dhacay waa Jidbaale. yani waa goobtii ay ku dhinteen 6,000 oo qof adigu qiyaastii 9 sano ka hor iyagoo la dagaalamaya gumaystaha Ingiriiska oo raadinaya gobonimo iyo calan Soomaaliyeed oo sharaf leh. waa dad yaqaanay hanka Soomaalinimada waxay tahay. maantana macnaha goobtii magacaa lahayd in sokeeye ay ku dagaalamaan iyagoo for no reason macnaha sabab leh ugu dagaalamaya. runtii waxay dhaawac ku tahay dadkan taariikhdoodii hore ee sharafta lahaa. shalay dagaal baa halkan laga riday. waxaa laga riday Qoriley, waxaa laga riday maxaa la yidhahdaa meesha la yidhahdo Docmo Arkengeeyo, Xilxid, waxaa laga riday meesha la yidhaahdo agagaarka Horufadhi. tii markii lasoo dhameeyey oo tacab badan uu ku baxay oo odayaashii ay kasoo noqonayeen iyagoo isla ku guuleystay arrinkii, haddana maanta tan baa la sameeyey. waxaa weeye waa aada iyo aada waxay u tahay arrin nasiib darro ah. waa la garan karaa maamulka Somaliland waxa weeye waxay door bideen inaan waddanka Soomaaliya aanu xasilin si aan dowladnimo u helin. waxay macnaha door bidayaan in si aanay Soomaaliya dowlad uga noqon si riyada beenta ah ee marka Soomaaliya laga quusto la yiraahdo at least idinka dowladda. tolkay waxaan leeyahay wartaa iska ogaada dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaasaa socda waxa aad iyo aad loogu xumaado. waxaan mar labaad leeyahay inta dhimatay Allah ha naxariisto, inta dhaawacana Allah ha boogadhiyo, inta usoo gurmatay oo odayaashii ka yimi Buuhoodle oo galadadu ay ka mid ahaayeen, odayaashu ay ka mid ahaayeen xataa shilka caawa ku galay Allah ha u dayasiro. waxaan leeyahay mar labaad nabadgelyo iyo sharaf iyo qofku inuu han yeesho baa aada u weyn inuu qofku akhriyo taariikhdiisa iyo wuxuu ahaan jiray. haddaanu qofku taariikhdiisa aqoon waxa weeye wuxuu yahay ma jirto. hal la baraarugo aan leeyahay, hal la baraarugo. dagaalkaasina halkaa ku joogsado ehliga ah ee sukayaha ah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله kaasina wuxuu ahaa aadan garaad maxamed garaad maxamuud oo nagala soo xiriiray magaalada London. aad buu mahadsan yahay garaadku. asalaamu calaykum. Ishi buktai ku Picasso. Wata barbarki dagaalka u bacdiyo baabi dacdoge. Ishi buktai ku Picasso. Wata barbarki dagaalka u bacdiyo baabi dacdoge. Ishi buktai ku Picasso. Waa baayadaada. Waa baaba'aaga. Waa baayadaada. Waa baaba'aaga. barwaaqaynta beeshiyo Barashada farteenu yee. barwaaqaynta beeshiyo Barashada farteenu yee. Ishi buktai ku Picasso. Waa bayaaga, waa iftiinka beegsadkiisa.